السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يو Excel for data analysis. وعشر كاني لبعض كسو دوبادة وحن فيليا إن عشر كوبات قيبت كوبات أتصفي عن وقبوتين مركا وارتي أنا هنا مركا سؤالي هي يلو جود بي يمحوها قيب قلاش يلو جود بي ويسوب وحيان حكت هذه بعد صحيح الشيء مركا حكتي واد أرود سي وحد كوكيدي سي محوها halkan aad ku keedsato waa kana dhamaan wixii filcilinaha wadan halka aad ku keedsato marka in aad analysis ku sameeysa laga doonayaa si ay kugu soo baxaan oo kugu soo baxo table noocan oo kale tahay ultimately kama dambaysta aad u sameeyso waxa la doonayaa inaad analysis ku sameeyso marka qaybtaas hoose tagaysa halkan aad tagaysa markaas waxaad raadinaysaa waxyaabahana qoranaysa halkan qoranayna calculation yaran sameeynayna functions ka aad taqaanay caadiga ahaa count if count a count blank stuff kaas iyo saaman isticmaalayna marka halkan ka bilaabaya saddexdaas qayb yaan buuxinaynaa qaybta koowaad waa tana waxa weeye n waxaan raadinaynaa su'aal walba meeqa qof su'aal kasta meeqa qof ka jawaabtay yaan raadinaynaa count a ana lagu raadiyaa function lagu raadiyaa formula ama qaacidada lagu raadiyaa count a so waxaan leenahay halkaas aan qalinka keensanayaa waa qaybta koowaad su'aasha koowaad fiiriya su'aashaas koowaad tan ayaan waxaan doonayaa inaan mataqaanaa aan ku sameeyo xeer waxaan doonayaa inaan freeze gareeyo let me just freeze that so su'aashaas koowaad waa kana okay so su'aasha koowaad meeqa qof ka falcelisan raadinaya totalka ka falcelisan markaas aan qalin ka dhiganayaa waxaan leeyahay equal waxaan isticmaalayaa formula waa kana waa count a marka sidaa kugu soo baxdo filaaraha isticmaal wata halka qalinka filaarka dulgee then taabo screen muxuu ahaa keyboard kaaga sida uu taabo marka taabto qaab ka soo noqonaya kadib formula halkaas kaaga muuqanaya halkaas sare marka intana wuu ku tusinaya halka maxaa ku qoran value aku qoran so value halkan aan raadinayna marka waxaan leenahay range not value range aan gelinayna range halkan aan gelinayna okay ilaa halka su'aasha koowaad wata ilaa halkan aan keenayna okay inta markaan keeno qalinka halka saaranaya bracket kan xiraya bracket markaan xiro intaan leeyahay magaciisa soo saare 25 inaadu waxa waa 25 qof ayaa ka jawaabtay su'aashaas okay 25 qof ayaa ka jawaabtay macnaheedu waxa waa tii hore aan sheegnay 25 muxuu ka qayb galayaal bay ahaayeen dhamaantood way ka wada jawaabeen okay qaybtan maxaa blanka meel ever ma jirtaan raadinayna hadii qaybahan hadda fiiri meel ever on laga jawaabin qofka ka aamuso faraha ka qaado on wax uusan ku qorin falcelina yaan raadinayna marka ayadana waxa lagu raadiyaa count blank halkaas aan ku qoray formula lagu raadinaya marka waxaad ku bilaabaysaa equal then waxa leedahay count markay ku soo wada baxaan filaartaada isticmaal dulgee waa ka count blank kadibna taabo okay then range ka aad marka halka gal jid ilaa halkan gee okay then bracket kaaga qalinka halkan keen bracket ka xir markaad xirto inta leedahay marka waa ever macnaheedu waxa waaye qaybtan oo idil qaybtan meel banaan ma laha kulli waa wada cuban tahay waxba ku jira waa laga wada jawaabo macnaha qof aan ka jawaabin ma laha amal weeyaan okay total kan raadinayna total waa iska fahmi karnaa 25 laakiin caadi formula gaan isticmaalayna ee qaacidada sum hal equal sum equal sum then tab kadibna waa labadan isku daray labadan markaan isku daro hal enter waa 25 weeyaan kadib hoos aan soo degay waxaan sameynayaa count kale tan sameynayaa tirooyin kale waxaan tirinayaa meeqa muxuu ahaa fiiriya scale-keena muxuu ahaa scale-keena haddaan idinku celiyo wuxuu ahaa strongly agree neutral disagree strongly disagree marka waxaan rabaa inaan ogaado meeqa qof strongly disagree noqotay dhahay meeqa qof muxuu ahaa disagree dhahay fahmaysa inta qof strongly disagree dhahay inta qof muxuu ahaa agree uga jawaabay inta kale inta qof muxuu ahaa neutral uga jawaabay dhammaan sida shantoodaasba meeqa qof mataqaana ka jawaabtay aan raadinayaa marka waxaan sameynayaa tan horan ku bilaabaya waxa lagu raadiyaa count if formula halkaas aan ku qoray qaacidada count if halka ku dul qoray fiiri count if marka waxaan leeyahay equal waxaan leeyahay count markaan dhaho count if hoos aan u baxay waa taa taabanaya kadib
range-ka iyo waa criteria labada formulaga labadaas qaacido leeyahay range criteria range-ka waa halkan su-aasha koowaad in lan ka bax hal su-aal waxaan dhan u raadinaynaa kuwa kale umaba gudbayna mogtahay halkan aan qalinka saarayaa marka halkaa qalinka saaro qaacidada fiiri waa range hakadka baan gelinayaa oo comma ah comma markaan geliyo criteriada waxaa weeyaan ereyga aan raadinaya waay ereyga aan raadinaya waxaa waay strongly agree way kaasaan click ku dhahaya marka click baan leeyahay click markaan dhaho kadib waxaan sameynayaa waan xirayaa xagga sare ka fiirso halkan ka fiirso halkan so markaan sidaa u xiro kadib formula wax yaraan ka bedelaa sababtoo waxaa weeye dhammaantood inaan hal mar calculate gareeyaan rabaa marka waxyaabo kaleete dabcan dee waad garanaysaa qalinka halkaasaan keensanaya waxaan taabanayaa f4 waxaan taabanayaa 2 jeer waxaan xirayaa macnaha number 2gaan xiraya waa rowgaasaan xiraya waan leeyahay lock waxyaabahaas dee hadda aan ka hadlay waa wax meelo kale cashiro kale lagu qaadan karo meel kale kasoo qaadan kartaan waxaa la dhahaa $sign ka halka gelinaysa tanna sidoo kale number 26 sidoo kale haddana iyadana 2 jeer aad taabanaysaa eeda sidoo kale waa qaybtaas kaleeta iyadana eedan waad xiraysaa xagga hore 3 jeer aad taabanaysaa iyada 3 jeer aad taabanaysaa ilaa $sign-ka calaamada dollarka inay kasoo hormartaa la rabaa eeda intana waa inay lambarada ka hormartaa kadib intaad leedahay inta markaa dhacdo wuxuu kusoo saaraa 7 qof ayaa waxay dhaheen strongly agree waa su-aasha koowaad keliya kadib waxaan sameynayaa hoosaan ujiidayaa ilaa waxaa geenaa neutral okay qaacidadu marka intaas soo saarto okay waxaa micnaheeda strongly agree 7 qof aa dhahday agree 4 qof aa dhahday strongly disagree 7 qof aa tiri disagree 3 qof aa tiri neutral oo isaga aamusay 4 qof totalkoodan raadinaa sidoo kale waxaan leeyahay sum equal then aan isku daraya markay isku yihiin totalkooda dabcan 25 le waaye marka is okay waa okay good halkaa waan isla soconaan malaynaa haddana waxaan u gudbayaa qaybtan waxaa waye valid percentages qaybtan man percentage u bedelaya wax kale ma aha waxaan sameynayaa equal ka bilaabaya waxaan raadinaya strongly agree percentage ahaan meeqay noqonayaan 7 qof percentage ahaan boqolkiiba meeqaa ka qaybgalayaashay noqonayaan percentage waa waxaan isticmaalaya tablekii aan ku tusiyay la dhahaya table sida muxuu ahaa satisfaction survey tablekii aan dhahaynay aan ku tusinaya la rabay inaan reportka gadaalka ka dhajiso percentage tusinaya ma tusinaya lamaro marka inaan percentage u bedelnaa waxaan leeyahay marka tan 7daas oo loo qaybiyey totalkii oo ah 25 kadib waan xirayaa qalinka halkaa geenaya qalin information geenaya keenaa b-da iyo number 4 dhexdoodan gelinaya markaas waxaan taabanayaa f4 waxaan taabanayaa 2 jeer ana 40gaas aan lock gareynaya kadib intaan inta markaan dhaho waka percentage uu isoo geli laakiin anagu format gareysneed lemi aan ka bixiyo marka formatkan ka bixinayaa I don't want any format gareysnaato formatka inaan ka bixiyaan rabaa I'll remove the format clear formatting so waxay noqonaysaa 0.28 ay noqonaysaa kadib waan jiidaya ilaa halkan aan jiidaya ilaa neutralkan jiidaya okay haddana totalkana waan raadinayaa totalka waxaan leeyahay equal isagana samla lagu raadiyaa samaan sameynayaa kadib waxaan sameynayaa waan isku daraa intaas so equal intaas ay noqonaysaa 1 intaa markaan sameeyo hadda waxaan haysta waa decimal waa dhibco waxaan u bedelayaa percentage waan wada highlight gareynaya kadib calaamada percentage aan click gareynaya halkaa ku taalo wada jeeda pop okay calaamada percentage halkaasaan taabanaya pop so way isbedelayaan maxay isku bedelayaan percentage boqolkiiba isku bedelayaan waa kaa marka macnaha waxaa weeye 28 strongly agree bay dhaheen 16 agree bay dhaheen 28 kale disagree bay dhaheen saas wey waxaad moodaa inay isla egyihiin no idea why that's so okay marka qaybtan halkan kusoo gabagabeynaya assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu